asalaamu calaykum, soo dhawaad walaalahay. videogan idinla wadaagayo waxaan rabaa inaan sameeyo rooti iyo biitsa yaraysa iyo cashadii aan rabaa inaan idinla wadaago insha allah. soo dhawaada, fadlan iga ilooban hadday ku cusub tahay subscribe, like, shareka insha allah dura bidmo. saa ujeediin 2 xabo ukuna iyo wax yaro sokor ah ya yeast waa faxisada iyo waxaan ku dari doonaa insha allah dura bidmo carfisada vanilada. insha allah vanilada tan isticmaalaa oo gasac igu jirta. gasac wax yariisaan ka furay si eerka bada ugu bixin moogtahay. marka waa la ruuxaya ku erisay tartiib uga soo baxda. hadaan geedka dhanka fujisid waxa waaye eerka dhaqso ka baxaya soo maaha. saa ujeediin koob oo qandac ah oo caano ah waaye. waxaan isticmaalayaa geedkaas oo maaragta suu u jirjilciyo waxa dhanaa rabaa si fiican isugu raacaan insha allah dura bidmo. soo fixisad waa tanaa qaadadaas weynta ah iyo wax yaroo afka la sii socdaan ku shubay. kii waxa waaye fixisad waxa waaye kii oo dhehaysa waaye fast quick rice ku qoran. quick rice waxa weeyaan dhaqsoy kacaysaa. ma aha mid aad sugsugaysid oo waqti badan aad meel dhigaysa ma aha. okay, so yogadan soo qabsaday 2 qaad ama 3 qaad ama adiga yogadka waxaan ku dhigayaa ada arki doontid anyways video soo baxo waa kala daadanayo ku macaan kaliya. tijaabi haddaad weligaa yogurt ku darin tijaabi. wax yaroo saliid ah ayaan dhag ku siinaynaa, saliidda qiyaasta adiga waxa waaye waxaad samaysanaysa wax reerkaaga kugu filan waaye. runta haddaan kuu sheega anisaan qiyaasta u sameynayo reerkay waa weyn yahay. adiga qiyaasta waxaa laga yaaba reerkaaga inuu yaryahay. so adiga dadaal just ideerka sometimes ideerka muhiim ah, fikradda iyo dhiirigelinta. okay, inaan ku dhiirigeliya laga yaabaa fadhiga ka kacdaad tirahdeen waad rooti qurux badan waaye, rootigaasito iskuulka noogu fiican yahay lami isku dayo ya aad samayn doontaa insha allah. waan jilcinayaa marka ugu horeysa, hadhow waan flowerka inta kale ku dari doonaa. waa garaacaan ku iro garaaca gacmaha usoo diyaarsana. hopefully maaragtay videoganet inuu ku siiyo fikrado badan, idea badan ya aan rajeynayaa. that's why aan jeclahay inaan videodanet idinla soo wadaago. fadhigaan rabaa inaan ka kacdo moogta 1 hour camal oolaya and then waan ku celinaynaa again and then waxaan sameynaynaa kooskooskii waa diyaarsanaynaa and then waa cabaaran dhigaynaa. so waa process waaye, wax walbana waxa waa tartiib step baa u baahan tahay runtii. waxaan qasanaynaa haddana biitsa yar aan rabaa inaan sameeyo. dhinaca iyadana biyo qandac ah waaye iyo wax yaroo yeast ah fixisadii weeyaan oo quick rice iyada naftirkeeda weeyaan. wax yaroo sokor ah ayaan ku qasiyaa. cusbadii xataa waan ku darayaa. usually ani cusbada gadaalan jeclaan ka daro, laakiinse I don't know sometimes saanoo kale kugu fakanayso but that's okay cusbada gadaalna ka dartaa fiican markaa flour ka dartid, laakiinse sometimes waa dhacdaa. so haddii kugu dhacdo sidoo kaleeto is okay maadaama uu rice bahalka yahay fixisada ay tahay quick rice. waa ujeedaa dhaqsi kasoo kici doontaa insha allah dura bidmo. so waa ujeedaa biyaha yariis waa ku yareeyay maxaa yeelay ma rabi inuu iga jilco aad iga jilco ma rabo inaan badiyo because biitsada yariistaan raba inaan sameeyo. of course qalqaloocay noqon doontaa, laakiinse qof oo ma aragti imtixaan iga qaadayo ma lahan. so reerkayga le waa biitsada waxa cunaayo ama cuntada waxa cunaayo waxa waayna side dish wax la dhahayo waaye. cuntada leftoverka taale iyo waxaas haddaan kululeyn doonaa. video dhamaadkiis waa arki doontiin insha allah dura bidmo. so saliidda iyadana ku fixinaynaa waa dhigaynaa si usoo kacdo. so biitsadana sidoo kale waaye. biitsa weyn haddaa rabta inaad samaysto fara badan 2 koob ama 4 koob adiga biitsada intaad samaysadiisa ku xiran tahay. okay, aniga hadda reerka saan kugu sheego wax yariisaan u sameynayaa ma aha wax fara badan. waxaan sameynayo 1 saac kabacdi aan rabaa inaan usoo noqdo. تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا say usoo kacdo waa ujeedaa. soo hadda wax yaroo waxaan ku daraynaa 1 koob oo kale bur ah oo nooga dhina aan ku daraynaa insha allah. so waa ku adkeynaynaa xoogaa yar. so markaan ku adkeeyo saa ujeediin waan duduubi. waxaan kasii dhigayaa sida rootiga camal u sameynayaa. adiga styleka jecesha u samaysan kartaa badana waxaan kula wadaagayo waxa waaye mini burger camal aan sameyno moogta wax yaroo sandwich camal ah ukun dhexda ka gelinayno ama haddaa haysatid sandwich tuna whatever aad rabtid inaad dhexda ka geliso waa ka gelin kartaa. rooti caadina waa dhiganaynaa because qaar waxa waaye moogta next time in la isticmaalo. so ujeediin suu noqday geedka jilaac ayuu kasoo bilaabmay laakiin waa ujeedaa jilaacaas la raba mal raba inuu ka adkaado. hadduu ka adkaado waxaa waaye it's okay but rooti adag uu noqonaya. basically adiga hadduu adkaado rooti adag, hadduu jilicsanaadana jilaac rooti macaan oo jilicsan uu noqonaa baaliis ma ah. soo jeediin warqadaha yararkan soo qabso. warqadaha waxaa loogu talagalay doorshaha kan lagu sameeyo roundka ah. kii kalaan ii oolin so bixiyaalo le la isticmaalayaa
ya saliida geesaha dhinaca baranaya because hadhow markuu soo kaco inuu geesaha iga dhigaan diidanahay so wax walba qiyaas waaye adiga qiyaasa intaas kaa dhamaani kuuskuus yariiriis ah xisaabtamo waaye cabaar inuu meel yaalana waaye uu soo kaco another half an hour camal so anyways haddaa videodan kale ka heshaan insha allah ila soo socotiya because aniga markaa videodan kula wadaagayo runtii waxa waaye dhiirigelin waaye waxaan rabaa inaad maaragtay fikrada ka qaadatay ay dhiiro aad gurigaaga reerkaaga aad u kacdidaan rabaa so hopefully insha allah hadduu ku dhiirigeliya ila soo socodsii commentiga like-gana ha iga iloobin insha allah like aad iyo aad ayuu caawinayaa like noo saar videoyada videodana dhammaystiro daawo kulligiis insha allah hadduu rabidmo okay videogan waxaan malaynayaa xoogaa yar soo dheereeyay because waxa waaye cashada aad iyo aad u fara badneed mana idin kasoo gaabin karin because haddii aan ka gaabiyo waxa waaye half of the story waa kaa go-day mogta so hadda saa ujeedid cashada waqtigeeda soo dhadhow inaan waxa waaye kala habeeyo hadda biitsadii aan diyaarinayn asuu soo kacday waa ujeedaa dhowr saacadood bay soo kacaysay ya dhowr saacadood ay soo kacaysay so hadda waa samayn doonaa badkii kale ujeedaa suu usoo faxay somaa kuuskuus yariiriisa ahaayeen haddana soo burbuurtay soo ukunta dhexda keligeed hadaa rabto waa samaysan karta hadaa rabtina kuligeed waa wada qasan karta hadaa kuligeed wada qastid yaloo oo guduud ah kuma noqonayo laakiinse wuxuu ku noqonayaa guduud yara and that's okay waxaa rabtay waa taas waaye inay kor u ekaato inay bisasha haddii kale hoosuu kaa gubanaa and then korkiina waxa waaye weli waa cadyahay waa soo taagaya waxaan isticmaalayaa sesame seed iyo black seed labada nooc waa isticmaalaya insha allah durabidmo adiga rootiyada qaarkoodna plain u daynayaa wax walba qiyaasteeda waa isaan ujeedeen pizzadii saasa u balbalaarinaya meeshiisa la ku sameynaya waa sameyn kartaa daarti raam qurux badan intaa bixisay ta soo jarjartay waqtigaas lama hayo yaa akhay reerkaaga waayo cunto macaan oo qurux badan u sameey boobsi ya waxa waaye dhagdhag weeyaan saxanka isticmaalayo waxaan kasoo gatay aniga reer Canada ahay Canada Canadian Tire-ka dukaanka la dhahayo waa waxay qabaan sometimes mataqaanaa sel fiican oo qurux badan ay qabaan soo markaas camalaan soo gataa runteedan ku sheego waagi hore timis hadda wax walba qaaliyoobeen soo waagi hore waxaan ku heli jiray $4.99 okay 80% off kaas ma ku yahay but hadda 80% gooda ma noqon taas because wax walba korkeen noqday waa qaaliyoobeen so insha allah hadda arko selkaas camal ma aragta community-ga uga soo dhijinaya hadduu sel yahay walaalaha rabo inay ka faa'iidaystaan geedahanayto oo saxuntan oo pizza lagu isticmaalo laba xaba haystaa markuu ga xukuman waa tuuraa laakiin lately si economy isku bedeshaba ya xuquuqitaan uu yahay baa aslan ku shaqeynaya waa la haynayaa sida ujeedin waxaan samaysanay tomato sauce ka marmariyay qudaarta xitaa taale iyo cheese-ka oo dhan lagu kordaadshay saasaan uban ku gelinaya insha allah durabidmo soo dhinaca cashada aan ka diyaarinayaa cashada waxa waaye maadaama ay leftover cunto taalay runteedaan ku sheego biitsana sameynaya rootina sameynaya rootin waxa waaye sandwich ahaan u sameynaya moogta waxa waaye cunto oo aad iyo aad u fudud qudaartaanayto oo side dishka ah aan sameynaya waxaa kaloo isugaya chicken aan shiili doona insha allah chickenka wuxuu wataa spicekiis wixii soo dhan hore ugu samaysto freezerkaan la geliyaa videogaas aydan kusoo dhejina insha allah videoyada oo cuntadaan diyaarinayay haddaa aragteen back to schoolkii hadda videoyada ka horeey waay saa ujeedeen qudaarihii xataa frozenka ahaayo dhan waa la dhamaystiraya moogta waa lagu dhamaystiraa waa soo maltagareynaya microwave-kan gelinaya deep frozen wax la dhaha ku sameynaya waxaa haystaa carotka waxaan lahaa green pepper red pepper yellow pepper maaragta way halaamaan dhaqso mar walba markaa suuqa ka keeno waxaan jeclaan dhaqo oo nadiifiyo oo jarjarto oo kala nooc jarjarto kuwana dhow kuwana yaryariis aan freezer ku turtan jeclahay soo arki doonta insha allah deep frozen kan ku sameynayaa soo ujeediyeen patati waa xaasatan saas u jarjaray iyo qudaartii oo dhan waxaasoo dhan because waa side dish waaye haddaa rabtid waxaa ku cunaysaa roti haddaa rabtid waxaa ku cunaysaa keligeed ama qudaarta dhinac qudaar waa loo baahanyaa sometimes haddii caruurta aad cunin okay because sometimes caruur waxaa jirta aan cunin runta haddaan kuu sheego saxanka oo cuntada maaragtay waxaa samaysaa ilmaha inaa wax walba saartaa fiican ay arkaan cuntada haddii ilmo qaarkood indhaha maaragtay ay wax ka cunaan soo hadduu qurux badan yahay cuntada waxaa laga yaabaa inay tijaabiyaan adigana ku arkaan waaye adig hooyo ah haddii aad cuntooyinka qaarkood aad si fiican maaragtay cunaysid waa lagu dabadayanaa waa la cunaa laakiin haddii maaragtay aad wixiiba aadan siinaynin chance aad siinaynin ay ku arkaan ama ku cunaan
carruurtaas seebay u baranayaan cuntooyinka qaarkood because haddaan soomaalina anaga waxaa naga dhacsan inaan cuntada afka u gelgelina ilmaha markay yaryar yihiin cuntada inay ku ciyaaraan fiican ay bartaan texturekeeda ama taabashadeeda inay bartaan wanaagsan waxaan arkay clip yar oo indho yarta wallahi waan la yaabay waxay cuni karaan ilmahaas waa la yaabaysaa afkooda adigaas weyn xataa ma cuni karto waxay ilmahooda yaryarka ay cunayaan qudaarta kala aragan ku iri waxay cunayaan farabadnidooda iyo isma lahaan si u eeg yihiin yaryariis batiit waxa waa jab yaryariis ah annagina ilmahan ilaahay caafimaad amri dheer noo siiye ya qosaaro waaweyn laf waaweyn oo imirkooda ah waa waxban cunayn cunto lee waa ku gurna daadseed ya meel ka soo baxday la cuntada dadkaan aragtay digestive systemkooda waa baliis ma ku leey waana dhudhooyin yaryar yihiin laakiin cuntada cunayaan ma umaleyn karti farabadnidooda qudaartana si cunaan ma umaleyn karti qudaar waliba ugu caafimaad badan ay cunaan soo ujeedin pizzadiisa ku soo baxday waa la dhameystiray rooti waliba ku sii jiraa ya waqtigiisu qaadanaa tartiibtiisa هاي chicken waa shilshilaa waxaan sameeyaa chickenka waa shilshilaa korkan ka shilshilaa dan ovenkan geliyaa say dhexda si fiican ugu sii bislaato haddii kale waxa waaye chickenka wuxuu kaa noqonayaa haddaan dabkan kore ku kariyo waxaa laga yaabaa inuu maaragtay anigana aan kor taagnaado waa ilaaliyo but markaan saan kula shiilo dhac aan ovenka geliyo ovenka jiisi karaa waxa kale iska sii kala dhameeya soo ujeedii rootiga waxaan sameeyay waa soo kala jarjartay ukun yar mayonnaise ku qasay aan ku sameynayaa cheese yariis la saaraa waa mini sandwich yariis ah sameeyay oo qurqurux badan saa ujeedin ya hadda waa kaasaa hadda cuntadii baastadii waa soo kululeeyay qudaarta diyaar waaye chicken kale noo haray saxankiisa saar tablekeena noo dhis ya meel sharaf leh ka dhig saa ujeedin rootigii iyo wuxuu kusoo baxay ujeedin chickenkan waa idiin sheegay waxaan dhahay markaan shiishiilo ka bacdina ovenkan geliyaa ovenka markaan geliyana guduhu kasii bislaadaa si fiican usii bislaanaya so tableka insinaya miiskeena cuntada saan u sharaxay runta hadaan ku sheego horan idinkugu sheegay indhaha cuntada laga cunaa so miiskaaga quruxso isku day reerkaaga inaa maaragtay isla wada cunteysaan cuntada aad iyo aad muhiim u tahay in la isla wada fariisto miiska hal mar at least haddii iskuu suurtagelaynin weekdayga maaragtay weekdayga waxaan ku wada ayaamaha iskuulka shaqada loo kala cararayo haddii iskuu suurtagelaynin weekendiga plan samayso in maaragtay quraacda la isla wada cunteeyo ama cashada ama qadada midkooda aad iyo aad muhiim u tahay gatherinkaas miiska la isla fariisanayo la isla wada cunteynayo anyways aad iyo aad muhiim ii tahay anigana inaa maaragtay thumbs up kii siisaan videoga iisii share garay walaalaha kale sii wadaaga channelkeeni kala waaye inuu noo kobcaa rabaa oo youtube-ka shuruucdiisa aan dhammeynaa rabnaa insha allah hadduu rabidmo kunkii subscribe-ka u dhownahay 4000 waa jawriska naga dhiman wax badan marka insha allah igu caawiya videoyada fiirsada dhamaystirta sii share garay walaalaha kale sii wadaaga khayr idiin rajaynayaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu waa inoo videoga dambe تناجي الله في صبر وترجو رحمة تسري فعاش القلب إخلاصا وصرت تحوم كالطير تحلق